السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن أصحابي مالكستو نغدا ونيسان هبي وناكسن هادبا برنامجدي كوباد يالاباد وان فيليا إناد سوين وغهشين معلوماتك أي حنبار صناعيين قضبضا عاو برنامجكان إذي كوغسو قدبنا يوحا كمين دغن دونا إيران oo ka yaabsatay dalalka dariska la ah kadib markii qawaaniin cusub ay u soo dejisatay marinbiyoodka Hormuz xataa haddii dagaalka lagu heshiyo qawaaniintaas ay dejisay ayaa lagu mari doonaa ayay leedahay marinbiyoodka Hormuz cidii wax isku haysa oo furan karta annaga hanoo timaado warkooda banaanka ayuu yaalaa Iiraan yaa ka hortagi kara qawaaniintaas jabin kara macalinka weyn iyo xirtiisa wara u yaala haddaba waxa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa NATO oo ka walwalsan Mareykanka markii uu yiri ciidankayga waan kala baxayaa Yurub gaar ahaan Jarmalka haddaba NATO maxay talaabaa oo ay qaadi doontaa wararkii ugu dambeeyay sheekadaan idin haya dhanka kale Israa'iil oo caawa sheegtay in saacadihii la soo dhaafay 120 weerar ay ku qaadeen goobo ay joogaan Xisbullah iyadoo Xisbullah maalmihii la soo dhaafay ay daakum ka dhigtay saldhigyo taangiyo iyo meelo ay joogeen ciidanka Israa'iil wararkaas ayaynu caawa barnaamijka ku faahfaahinaynaa saxaabay inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa haddaba taariikhdu waa 2 bisha May 2026 barnaamijka saddexaad ee caawa waxaanu ku soo gudbinaynaa wararka iyo akhbaaraadka soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba waxaynu ku bilaabaynaa wararka soo kordhay Hormuz Iiraan waxay leedahay xataa dagaalka hadduu saan ku joogsado Hormuz tii hore ma ahaanayso oo nin walba isagoo laafiyoonayo iska marayay ma dhacayso Hormuz waxaan u samaynay qawaaniin iyo sharciyo lagu dhaqi doono sharciye iyo nidaam Hormuz lagu shaqayn doono ayaan hadda ka shaqaynaynaa oo dhignay qof kasta ma mari karo meel madax bannaan oo qof walba suu rabo isaga socdo meesha ma annaga meeshaas iskale dheen annagaaba ku habsanay waa haysana markii hore annaga lahayn xoogaa maaratay dadka ka xishooneen laakiin Mareykan oo ka yimid qaaradaas inuu meesha yimaado oo ku feesteeyo annagana iska fiirsano wax dhici kara malaaba jilcan yahay macalinka weyn waaba jilcan yahay intii hore waxa marka hore qataraaba moodi jirnay hadda waaba waxa uu qaadi karaa askeer marka dariska ha ogaadeen carabta iyo meelaha waxa degan Hormuz qawaaniintan aan loo dejiyay haddaba qawaaniintii marka qaar kamida ayaa la soo saaray caaw haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay ku-xigeenka madaxa baarlamaanka dalka Iiraan ayaa sheegay inay diyaariyeen mashruuc qawaaniin cusub oo lagu maamuli doono sida uu yiri marinbiyoodka Hormuz haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay wuxuu yiri waxaan diyaarinay sharci qabyo ah oo loogu talagalay maamulka marinka Hormuz kaasoo mamnuucaya maraakiibta Israa'iil inay gebi ahaanba maraan marinbiyoodkaasi Hormuz sharciga qabyada ah wuxuu ka mamnuucayaa maraakiibta ka imaanaysa wadamada cadowga ah inay maraan marinka ilaa ay bixiyaan magdhow dagaalka sharciga kale waxa kamid ah sharciga qabyada ah waxa uu u ogolaanayaa maraakiibta kale inay maraan marinbiyoodka Hormuz haddii ay helaan ogolaanshiyaha Iiraan sharciga qabyada ah wuxuu sidoo kale ku saabsan yahay marinka waxa loo qaadan doonaa si waafaqsan sharciga caalamiga iyo xuquuqda dalalka dariska la ah way sharciga marka waa qabya dhehen hadda baarlamaanka la geenaya waa la baaskareynaya waa la habeynaya sharcigaas lagu xukumi doonaa horta Israa'iil meeshaas waxay leedahay ma soo mari karaan ali Israa'iishi carabtan xiriirka la lahayn imaaraadka iyo ayada ay isku shishubanayeen
baxrayn iyo meelahan ibraahimiyada lagu jiraa la lahaa maraakiibtooda saas iyo saas meesha u mari jiray meeshaas hal markaboo israa'iil leedahay ma soo istaagay ama shirkad israa'iil ay wax ku leedahay xataa ma mari karaa liin mustaqbalka xataa hadda ma aha hataa dagaalka hadduu joogso saan lagu kala baxo xataa maritaanka mustaqbalka laga hadlaa qawaaniinta waa kuwaas waxaa sidoo kale ku jira qodobada soo socda lagu dhaqi doono Hormuz dal cadow ah markabkiisa ma mari doono dal cadow ayaa way marka cadowga Israa'iil waaba la sheegay macalinka weyn waa la og yahay waxa kan cadow maxay tahay cid u aragto cadow waa Iiraan inay cadow ku tahay cid u aragto meesha ma mari karto imaaraad saas u jareynaya marka imaaraad iyo dawladahan cadow ku Iiraan ninkay cadow ka dhigato markibkiis ninkay rabto ma marayo waa macna waa kaarta cusub ninka aniga cadowgayga ah ma mari karo cadowgaaga yaa waa Israa'iil waa sheegtay Mareykan waa sheegtay yaa waa kuwa kale iyada og ninkay u aragto waaye ka xanibaysaa meesha marka falsafadan iyo qorshahan iyo nidaamkan ayaan u degsanay dhaheen waa qabyo waaye sharciga waa la soo dhameystirayaa kaasa lagu maamuli doonaa marin biyoodka Hormuz ninkii wax dhiba ka qaba oo macnaha waxa kan aniga maartay suuragal ma ah dhigi kara annaga hanoo yimaado meesha haddii uu tabar isku hayo marka hawshaasu halkaas maraysaa wararka waaweyn soo kordhawaay waxa soo kale wararka soo kordha kamid ah Mareykanku waxay yiraahdeen ciidankeena Yurub waa ka qaadanayna gaar ahaan Jarmalka waliba 5,000 oo askari sanad gudiis ka qaadanayna Yurub oo dhan waa khalkhalsantaa mar Yurub oo dhan saasay u jareynaysaa ila Yurubta leedin sheega wax tabaray hayaa babajirin waray hayeen iyo kaabayn iyo adduunka maamuli jirnay gumaysiyaal ah Boortaqiiska Spain Talyaani meeshaas gumaysan jirnay aabta warkaas adduunku kala hayeen ila nimanka Mareykanayba ku tiirsanayeen tabar ay hayaan male masaasa liiraha waa noo taala Mareykan dagaalka ila gala soo madiida ninka Trump liira ciidankayga bay ka qaadanayeen meesha hadda Ruush iska celi kartaan waa arkeenaa Yurubta leedii sheega Iiraan xataa awood kuma dhamaan lagu leeyahay waaba dhiban jaajirin oo ever awayba yoon ilaa Mareykan bas ku taagan waay hadda marka waa la khalkhalsay naata hadda marka waxay leedahay cadeymo dheeraada ka rabnaa Mareykanka sababtu uga baxay Yurub gaar ahaan Jarmalka maxaa uga baxaysaa Yurub maxaa dhacay warjoog waa ku toogeena macalinka weyn tabar ma hayaan nimankan alqaaratul ajuus aan arabta boogtay عربت وحيد هذا القارة العجوز قارد عجوز هذا عيدو ويلك عيدو يربط ونبانا خبردار وادو كان وركب هايام قلت لهاني ألابت الله يسكر هذا تبربه وربك بايان مركا أنا تصور وركي وجود بيشة كذا على قوري العربية وحيل هاي ناتو وحيد البريسة عدي مرة يرادا سببته oo marka ciidamada Mareykanku ay uga baxayaan Jarmalka in marka cadeymo la sameeyo hadaba waxa la sheegay maanta oo sabti ah in ay xiriiro dhexmarayaan NATO iyo Mareykanka oo ku saabsan qaraarka Washington ay kumanaan ciidankeeda ka qaadanayso Jarmalka in marka NATO ay doonayso sababaha in la cadeeyo afayeenka gaashaanbuurta NATO gabadha la yiraahdo Alison Hearts ayaa barteeda X waxay ku soo qortay in marka Mareykanka ay ka doonayaan inay kala shaqeeyaan sababaha iyo cadeymaha dheeraadka qaraarkaas ciidanka Mareykanka looga qaadayo halkaas mawjada marka walwalkaas ku jira nimankii qaaradii cajuusada ahayd jooga alqaaratul cajuus alirada meesha nimankaas carabtana war dhamaysay marka hawshaasu marka halkaas maraysa dhanka kale nimankii Xisbullah ahaa waxay yareysteen taangiyadii askarti dhiigbax waxa ku dhacay Israa'iil aysan filayn koonfurta Lubnaan drones aan la qaban karin oo nagta ku haysta taangigii madaxa soo qaadan inta xanaaqeen galabta ayay 120 weerar qaadeen
wixii bamba ay haysteen way daadiyeen saas hadday xisbullah ku baaba'aysaa leey haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen 120 goobood oo xisbullah ay ku sugnaayeen waxaynu burburineen 70 guri iyo 50 meelood oo adeegyada gaarka ah ay isticmaalayeen xisbullah waxaanu sidoo kale ka takhalusnay dagaalyahano ka tirsan xisbullah ayay yiraahdeen marka waxay yiraahdeen nimanka nafteeba noo keeneen halkaan ay noo galeen 120 ay weerareen marka 120 kaas waa jug culus laakiin ma la helay mise lama helin waa hawl kale marka hawshaas ayaduna dagaalkaas halkaas ayuu ka socdaa qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa qaybihii ugu dambeeyay ee aanu ku soo qaadanaynay wixii akhbaaraaday haddaba qaybaha ugu dambeeya alaaba waxaynu ku soo qaadanaa wararka soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba channelka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu leeyahay Tel Aviv waxay sheegtay caawa wax kasta inay diyaar u tahay macnaha wax kasta oo dagaal oo Iiraan ku saabsan inay diyaar u tahay haddii dagaalku sii socdana diyaar inay tahay haddii meeshan lagu kala joogana ay diyaar tahay scenario kasta oo arinta ku saabsan diyaar u nahdeen marka way odayga marka waxa leeyahay Netanyahu ahaa xoogaa sidii hore gabgab u malaha dadka qaar waxay leeyihiin cudurkii kansarka ayaa si xoog leh u haya inkastoo isagu uu leeyahay waan caafimaad qabaa warbaahinta qaar qoraysa qaar waxay leeyihiin odaga si uu niyad jabsan yahay dagaalkii Iiraan wixii laga filayay waxaan ahaynaa ka soo baxay Iiraan wali way xoog badan tahay Iiraan wali gantaalaheedii way haysataa 40 maalmood waxba waa la iska qaadi waayay asaga iyo Trump sheekadu waa ku xumaatay wixii ay soo gudbiyeen oo Trump ka gadeen waa shaqeyn waayay marka halkaan niyad jab dagaalka ku saabsan ayaa haystaa la leeyahay dhanka kale xisbullah oo iyaduna sidii la moodayay ka xoog badan oo hadda hadii sidaa lagu kala joogsado si xoogaysanaysa ayaa iyaduna meel meeshaana u fadhis marka odagu dhowr arrimood ay isugu darsamay xisbullah iyo Iiraan iyo kansar iyo waxba madaxa ka galay odagi marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa barnaamijka qodobkaas ayaa ugu dambeeyay waa barnaamijkeeni habeenimo haddaba barnaamijyadeedii koowaad iyo labaad waxaa ku jira mawduucyo aad u xiiso badan dadka aan daawan iyaguna way daawan doonaan inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka